مالك بن دينار رحمه الله هبين هذا كمدو كما نامي منام بالغو يركع مساجد كويا الله حافظة ومدينة بصرة إن يرى الشاب جوجا وإلهي كعبودية سدح مع المودير كاسع تمعن هذا الراشين كريو أجيب الوجود منام وكعي انتدي بصوت ديارية مسكيت كوي مدي وحوصو قال إن يرى الشاب ودعي سنة شباب كيني شباب كاسوي انتدي بودي والله عني markay isbarteen ay wada cunteeyeen buu ku yiri aqalkaygu waxa ku yaala xaafada ka dambayso ku yaala wadada saa u soo marsada u soo mar ali markaad baahateen cunto u baahatay ii kale buu ka yiri hadalka markuu yarkii yaraa maqlay wajigiisa buu bedelay wuxuu yiri maad taqaanay horay may maan ku aqaanay maya xalay adigoo hurda ka amarka kugu siiyay inaad kacdo cunto aad ii soo kariso ii keento كابريدي سينتون دائما هذيك كوي ما دابو كي إذا سألت فاسأل الله كاسب بري يبودي مالك المبريو الباب كمخلوق وانسك حدا يبودي عنكو الباب كخالق عن قراعة بس حديد كإلهي إنك قد حيا حدو إنو حقاقو نولس أدوية إنو حقاقي حديد كإنك قد حيا إنك إلهي معاكو حقاجينينا جركينن عمل كوناكسن وينو كصوبحا صلاتي وعمل وناكسن صومكي وعمل وناكسن قرانكي وعمل وناكسن صدقتي وعمل وناكسن فديك مسكيتك وعمل وناكسن ذكرك وعمل وناكسن تعليمته دينته الله برن وعمل وناكسن دينته امه لوغو يرا وعمل وناكسن عمل وناكسن بل ربا ان لا شقيو صلاه الصبح ايو نبينا كبخي عليه الصلاه والسلام صحابتي سيبو نبيغو سدا او ايغاي وحو يري kiineba saaka waagu u bariyay isagoo sooman Abi Bakar baayid aniga kiineba saaka waagu u bariyay isagoo qof bukana soo buuqday Abu Bakar baayid aniga kiineba saaka waagu u bariyay isagoo janaazada asna ka soo qayb galay Abu Bakar baayid aniga kiineba saaka waagu u bariyay isagoo maaragtaanay qof xanuunsanay soo ziyaartay Abu Bakar baayid aniga markaa buu nabigu xisaalka aan soo sheegay nin uma kulanta haday u kulantana ninkaas waa hel jannah rasuulku yiri قبل صلاة الفجر أيها أبي بكر الصديق إسقى صومن واجو أبريي إسقى صومن أسنا كسو قريب قلي قف بكنا سو زيارتي مسكين سوق ودي وحصوصي دار العمل بي جوجين يقرتني دار العمل إني جوجان بي قرتان دار العمل بان جوجنا دار الجزاء هل كان ماها دار تلي نجوها بالمرنة أدويدا ماها أدويدا ودارتي عملكنا وحو كصباح يا واجرك ماشينك عملك السمينة وجركاغن جركن أي الله دون يا إلهي نقول رالي قلي حبناها بس دان حبنه الناس إلهي كو عبدنا كو أضعنو الدويدا السدام دون الله إلهي نو يلي قلبتان شيء كتابك إمام ابن الجوزي رحمه الله ولي صفة الصفوة تساعد جيبه كشك عبد الواحد بن زيد اللي أورنجري صالح وعابد ريمك أيها هبين هذا كميدا سدو أدو عيسان يو الله بريي أيو إلهي وحور إلهي قبلها مؤمناتك إذ أنيق مارك تاني أدو يدا الآخرة جنة يقول طلق شيء حد يأدونك جوغان إله يتصبوا لي وصيح ده مركو دو عيستي بسك الصيح ده منام بالغو يري قبل ميمونة السوداء الليلة عراق كنول مقالة كوفة كنول ميغا كوفا كنول ايا كمدا غبدها مؤمنات كجنده لوغو غورين دونو مكو كدقاقي عراق بو تغي مغالده كوفو يميدي ددكيبو وريستي markaas loo sheego leeydi wartaasi waato macduurada oo dadka ma soo dhex gasho magaalada dibadeeda xoolo ku dhaqata waa iyada waxa rabay ii tilmaama halka mar uu tag baa lagu yiri wuxuu yimid iyadoo ari badan dhex joogta arigeegii iyo waraabuhuna isla daaqayaan isla cunayaan markaasay jubbad suufa ay markaa huwanta salaad baytu kata 800 maanu malan kitaabka inaan ka arko subaxdo kaliya 800 rak'aytu kata فايتكتا ويكبحدا ويتكتا ويحدتا ويتكتا
markaabay dareentay qof bini aadana inuu meesha soo dhawaado ariga soo dhex galay salaadii bay khafiifisay kolka salaadii ka baxday ayay ku tiri ibn ziyad ibn zayd bay ku tiri ballankeenu halkan ma hayno aakhire iska soo bay ku tiri wallahi magaciisina way sheegtay muraadku u socdana way sheegtay arigeegiina u eegaayo waraabihiiba iska dhex socdo oo la cabayo oo la daaqayo oo dhex jooga wuxuu ina zaydina nahay oo arrinka u socda ayaa ku sheegay waxay tiri xadiiskii nabiga maadin lowday inna al-arwah junudun mujannada fama ta'arafa minha i'talafa wama tanakara minha ikhtalafa xadiiska nabi maxamed uu yiri arwaaxda bini aadamku waa askar ilaahay oo isku xidhan weeyaan caalam al-arwaax baan wada joogaynay labadii ruux ee halka sare isku taqaanay adduunkana way isgarano way is-urino way isfahmi hadday halka isku soo diidayna adduunyadana way isdiidiye arwaaxdina istaqaanay salaama bay ka tiri ballankeennuna waa aakhiro su'aal kale ma ku weydiiyaa ay weydii bay ku tiri su'aal hadalkana soo gaabi arigaagan waraabuhu ka cuni maaya maxaad ku akhriday buri bal ii sheeg waxay tiri hal yaabin anigu ilaaha khaaliqa rabbigay xiriirkii naga dhaxeeyay baan adkaystoon hagaajistay labada xiriirkii ka dhaxeeyana ilaahay ba hagaajiyay tiri khilaafadii Umar ayaa abaar baa ka dhacday magaalada Madiina iyo duleedkeega aryaaf al-Madiina dadkii miiga ahaa xoolihii baa ka dhamaaday magaaladii bay u soo qaxeen Umar ibn Khattab ree Madiina tarqiibiyay waxaad haysan la bax buu yiri nin walba wuxuu hayay buu bixiyay markaaba dadkii oo dhan raashinkii la siiyay abaartii baa daba dheeraato roobkii baa raagay maalin walba 7 qof baa dhimato la aasa maalin walba 7 qof baa dhimato la aasa markaas Umar ibn Khattab warqad buu u diray Umar ibn Aas oo Masar jooga wuxuu adiga jooga wadankii barwaaqada badnaaye wabiyalka lahaaye soo dir macaawano markaas uu soo diray maaragtaan macaawano awr raashin laga soo buuxiyay macaawanadii markii la keenay dadkii la siiyay hadana abaartii way daba dheeraato roomadiine gaajadii way sii ziyaaday faqrigii uu sii ziyaaday abaartii way sii ziyaaday nin saxaabiya orgiyar soo qabtay orgigii buu qalay hilibba uu ka waayay lafa mooyaane waa muhammada buu yidhi uu seexday habeenkii nebigu manaam ku arkay calayhi salaatu wasalaam yaa rasuulallah dhibaatadaasaa nagu dhacday markaa buu nebigu ku yidhi cumar salaaniga gaadhsii laakiin cumar oo sidaan ku moodayay ma noqon waa ku sidee ka dhow ka yidhi cumar salaaniga gaadhsii horta sidaan ku moodayayna ma noqon oo kacay hurdadii buu ka kacay masaajidkii buu yimiday cumar buu u sheegay عمر مسلمين تي ودن بو يهده صحابتي فرينتا ابو نبيغو اي سو دره ما قلدمه بل شيغا ها واد قلدنتا لغا يدي واد قلدنتا ما كو قلدمي كلك اباري اي تيمادو اي روبكو نغو يرادو waxaa nabi maxamed uu nabaray inaan roobdoon salaatul istisqa inaan tukano adiguna amiirkii muuminiinta tahay amiir baa tahay amiir khaliif baa tahay ilaahay ducadaada waa aqbalayaa dadka intood u saartid ma aragtaan musallaha intood u saarto han noo duceey bay ku yiraahdeen markay banaankii u soo baxeen halka uu Umar ka duceeyay halkii isagoo Umar taagan ayaa fadka waxa laga dhex maqlay oo la leeyahay ataaka al-ghawth ya aba hafs ya Umar gurmadkii aad dalbatay waa ku yimiday halkii iyo ko jooga ilaahay roob ku siiyay salaad bay la yimaadeen xaajadoodii ilaahay u daboolay macaawina u timiday baahidoodii way sii ziyaaday halka maxaan ka fahmaynaa bani aadamku mar alle markay bani aadan iyo makhluuq u jeestaan baahidoodu way sii ziyaadi faaqadu way sii ziyaadi mashaakilkuna uu sii biiraya markastoo bani aadamku xag ilaahay u soo noqdaana ilaahay xaaladooda isaga markaa bani aadamka bedelaya muslim ayuha almuslim أعمال أحكام وحا إلهي النبي قال إنه قصوا ديبي حدي مسلمين تقرتان نظام كعالم قد بدلس روب هالدين لوايو قال هذا ما أنت للي تكنولوجيا بيقارن هرمر بيقارن آلات ما هيان أي روب كوكاني كران ولكن نبي محمد إنك وحوه النبري صلاة دي دعاء الروب كان لقو كاني ونبي قل نبري
nebi reer bani israa'iila dagaal buu galay, dagaal jihaad, dagaalkii oo socda oo gaal iyo islaam la isku laynayo. salaaddii casar baa gaadhay, markaasay nebiga u sheegeen, yidhaahdeen yaa nebiy allah, salaaddii casar baa taagan, salaaddii baa taagan. nebigii waxaa la yidhi fartiisuu ku fiiqay cadceedda, sidaa ugu fiiqay. waa nebi ilaahay doorto rasuula. markaasuu yidhi adigu amar baad ku socotaa, annaguna amar baan ku soconnaa. kaan amarkiisa ku wada soconno ayaan weyddiisannay inuu ku joojiye. halkaa noo joog buuhi ilaa aan gaaladaa kala baxayno, halkaa ha ka dhaqaaqin. xadiisku waa saxiix. dagaalkii bay wadeen, way wadeen, gaaladii bay jebiyeen, way ka guulaysteen. khaniimadii xoolihii bay la soo hadheen. kolkay guushii ay gacanta ku dhigeen, wax walba ay guulaysteen, ayuu nebigii ku yidhi cadceedda inoo eega. weli halkii bay joogtaa, soo ma joogta? haa, salaadda imminkaan tukanaynaa buu yidhi. markay salaaddii tukadeen buu yidhi haddaba iminka iska soco, iska dhac buu ka yidhi. horumarka caalamku ma gaadha iminka? caalamka horuu maray. maxaa horuu maray? birahan qayliyaa horuu maray, birahan wax duubayaa horuu maray. bani aadamku ma horuu marin maanta. hoos baan u dhacnay innaku maanta. keligii meel joogaa maqlay fadka dhexdeedoo laga leeyahay beerta hebel u geeya daruurta, beerta hebel roobka u geeyo daruurta u geey u weciya. daruurtii buu eegay, meel bay ku da'day, barkad biyay ku dhacday. beertii buu yimid, nin wuxuu arkay dhex taagan oo biyihiisii beerta mangadka ugu wewcinaya. markaasuu yidhi magacaa, magacii buu u sheegay. magacii uu ka maqlayay fadka daruurta dhexdeeda iyo magaciisii baa isku tegay buu rasuulku yidhi. markaasuu ka yidhi maxaad iga weydiisay magacayga? wuxuu yidhi wallaahi wax kale kuma weydiine, waxaan maqlay magacaaga oo fadka dhexdeeda laga sheegaye. beertaadan maxaad ku samaysaa ii sheeg. daruurtii waa ka ilaahay adigoon kuu keenee. wuxuu yidhi haddaad i weydiisay, beertaydu markay ii soo go'do ayaa saddex u qaybiyaa midhaheega. qayb beerta ayaan ku celiyaa, qaybna aniga ubadkayga ayaa cunno isticmaalna, qaybna waa sadaqadaystaa buu yidhi. xadiistaas waa wada saxiix. waa bani israa'iil ayuu nebigu nooga sheegaya qisas saxiixa. muxuu kuugu sheegaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam? waxaa lagugu baraarujinayaa haddaad camalkaaga hagaajisid, haddaad adig iyo ilaahay xiriirka inii dhexeeya haddaad hagaajisid, noloshaada adduunyadan iyo ta aakhiro waxba kaa xumaan maayaan.